بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضبنا ما تحكوا دروس تاجدونا لبا قضب أو قراءة كلن كسيد عبد الله الدني أحمد محمد إسلام أحمد نور حد دارين ودروس تاجدونا ونيروبي قضب كلنا دروس تاجدونا وحكم بده مقدشو ومقدشو أما السحامر با من نقون كرتاه من نقون كداه من نقون كداه عاصمة أمة الصومالية على السؤال أيضا وأدري استاجد دونا ويه أنكو المرة سعود عبد الله الدني سعود غروح يا أحمد محمد إسلام أحمد نور أيها كشرية وقت حاضر كانوا اللي تشوفوا مقالة نيروبي يا عاصمة الكينيا كل كاس يحود دارين كل كاس يحود دارين هاي حلقة بحران كايتوبيا أيها نيك اللي يراهدو حسن الشيخ محمود حسن عياح شلبها قبصدي رئيس وزراء إثيوبيا مدحوينها كينيا سو كعصدي إنay dhexdhexaadiyaan labada maamul goboleed ee la kala yiraahdo Puntland iyo Jubaland taasoo ay ku qasban yahay ay ku qasbayso beesha caalamka oo tiri dhaqaalahii iyo deeqihii la siin jiray dowladda Soomaaliya ayaa la goosanayaa haddiina midoobin oo idinkoo mid ah in ummadda u imaan way waxa uu ka codsaday madaxweynaha Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia wax allaale waxay kula taliyaan ayagu labadoodu in uu gardhibtay ayna una yeelay sidoo kale waxa gartaas qeybka aan ka marnayn dowladda Imaaraadka oo Xasan ayadana u dhiibtay gartaas oo yiri nimankaas nala dhaxaadin way nimanku waa kuwe marka waa labada maamul goboleed ee qadeeya waa labada maamul goboleed ee waxaysta waa labada maamul goboleed ee kaftoomi kara والله ما مقولد دكتها أي على بورة أيوة إسكاي ولبعض ما مقولد إمبورتي إكسبورتي أيوة والله ما مقولد عيدا كيسيد يشغالي سبب مشاك ولا أيوة صباح هل كقوة كله دولة فدرال كما حسن أيح وبقول يكون تكون $1 بشي سيو حاول وقتين ما لحظة ما مقولد ده كله قال مدو الشباب يكون فرق البيت in lagu kabo bishii $150 kiididana laga jaranayo wuu ku qasban yahay madaxweynuhu inuu u sacabto markaas qofkii fil Soomaaliya fadhiya ku qasban kuwani badalkeeda inta badan waxa ay wax u diidaan qofku markuu dheregsan yahay waxna waa diidi karaa oo waa dheregsanahay waxaan ma cuni karo dhihi karaa waxna waa yeeli karaa oo qaadan karaa Joyce buu leeyahay qofku markuu dheregsan yahay laakiin qofku markuu baahan yahay wax Joyce samale markaad dheregsan tahay waxaad dhihi kartaa tani waa canjeelo hadhow baan cunayaa kani waa bariis kani waa baasto maxaan maanta cunaa waa ka fikiri kartaa maanta maxaa karsataa laakiin markaad baahan tahay xasaad haysan waxaan wax lagu bedelo haddii digir lagu soo dhigo sacaba waad ku khasban tahay maxay tahay adoo oran inaad dabka kula orodid وهالك معمول جوالدها كله صدق معمول جوال كله Puntland iyo Jubaland ay kala joogan waa ano idin waa qeexitaan yar oo idin qeexay way labada nin Saciid Cabdullaahi iyo Axmed Maxamed Islaam waxay isugu tagayaan maanta Nairobi hadda wada fadhiyaan waxayna ka shaqeeyaan kana hadlayaan samata bixinta ummadda Soomaaliyeed sidii Xasan looga qaban lahaa sidii danta Xasan meel loo dhigi lahaa danta caamkana loo shaqeyn lahaa inay Xasan warqad u qoran dhahaan Xasan haddaad rabtiin anaga sawir la gashid haddaad rabtid inaan Soomaali midaysan aragtid haddaad rabtid inaad sawir la gasho dhaqaale adduun kuba soco warqadan qabo sida qodobka socodsi ka shaqeey markaas aanu sawir kula galaynaa ummadana oranayna caalamkan u sheegaynaa inaan wada soconno si ay lacag u siiyaan haddaad idiyalka nakala kaxee intaas weeye inta dhacaysa insha Allah saacadaha socona wax ka soo baxa oo la socodsiin doona way qodobkayga xiga aan aado marka qodobkayga labaad waxa weeye ma noqon kartaa ama soo luqadda ma jirtaan ma noqon kartaa caasimad Soomaaliyeed Muqdisho qodobkaani wuxuu khuseeyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed marka laga reebo beesha hawiye ee hadda Muqdisho sheegata fadlan xambay kugu tahay dareysid waa ku xamaynaa iska bax qeyb la ku sida hawiyada farintan hal isgaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed marka soo joogto way sanadkii hore ama kal hore xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligan oo kale
maxaa dhagahaaga ku soo dhici jiray remember dib u laab maxaa dhagahaaga ku soo dhici jiray beesha muduloodaa shirta maxay ka shireen kursiga banee farmaajo garan beesha hiraaba shirta maxay ka shireen kursiga banee beesha waxay isla shirta maxay ka shireen kursiga banee beesha waxaa shirtay muxuu ahaa qabiil kasta reeb la hawiya weli miyaad aragteen xasan hadda kursiga fadhiyo beel daarood shiroo soo leh oo qabiil odayaashii leeyihiin kursiga banee waa beel daarood shiraysa maanta shir daaro waayo yaa ku sii fogaan hadalka bal shirkii ay isugu yimaadeen ilaa madaxweynayaashii hore Soomaaliya oo maca xasan fadhiyo oo sheekh shariif fadhiyo oo cali mahdi fadhiyo oo shirki mudulooda beledhigiisu waa kan أنا كل شيء مدحوينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنس مغلنو شركة كانوا واشر مدلود نن مدلود كأن مجرو مد معارضة ومدلود مد معارضة ومدلود كيو الشيخ ومدلود نن هنقول له هاد بشر سو بقرين للذي كرو هبل المحل كرو هم بهذا اللي سيما يلا مجرو سداس شركو نغرايا شركو سداس وقول كوغاري كرا او كليا هدان هبل انا ما قوليسنايو ضعف فوضى حلا ضعف مركز. السلام عليكم. علي مهدي محمد ومدحوينه شرف له waayahay shirkaas waxaa fadhiya sheekh shariif waxaa fadhiya xasan sheekh maxamuud waxaa fadhiya cali mahdi allah naxariiste waxaa looga hadlayaa waa shir beeleed ismi ma culumadii waa fadhida culumadii ma fadhida nin la salaad cali jeelle oo beesha kamid ah oo abgaara ayaa soo istaagay ka faklo dhiib walu origa illa cali mahdi yiri mucaaradi muhaafid waa isku mid hal daayo odagu hadle ilaa u shafiica qaaday cali mahdi walu oranay beeshaasi waxay hoolka u kaleysatay oo beel ahaan uga hadlaysay farmaajo kursiga kadig waa beel Soomaaliyeed ogow maaha urursiya shirkaasi maaha urur maaha xisbi maaha siyaasiya maaha dad isugu yimid siyaasiyiin laakiin waa beel Soomaaliyeed oo leeyahay mudullood hadda ku soo fadhido hadda ma aragtay mudulloodkii ma aragtay ma miina way bal oo soo laaban doona waxay falaqayn هذانا إلى دقيسو نينك اللي يراهدو شيخة مدلود بالمحوكيين حلقاس وكيري فرماتشو سيغانو شيء هذا واتشو واسا امسين وحكي صدعي بلا شيخ انا سيدي نوركيس كو مدحتودا جوجو كوفي استا هدي حبط بلابطو نور بخو هذا برتا او كيو ركيس قبيل كسو هذا لما تكون جوجا مجرو شريف وان نبدادا الا كون اد هدي او دريم ظلم حد قذب أنا أقبل كرنا عيد أذق شيخ شريف وعرونا يا طبيعي قول كيسو قلها الله يفكو قلها عيد وحليها والله يستا ويرى اللي يقولها إذا أنا جوهر رئيسا ماشي الدولة ما جوكتو نمن عصابة ضدك إني أود وشيكتين ربع أيات جوجا سان ضلكم في السمين ضلك تلعبان كقاعدنا أنت أسكري ولا يعني واللي حريوا اللي حري وأنت طبعا الله لا يفكر واسكدي منها أنت أسمرك في فيسبوك الله دقو وحارس أفر لو تساعد جوده هذا بقول كنت تكني كانوا وقويق مطشير نعك سوق لسان بقول كنت تكني كانوا كفرك سوق لسان سدح بقول تكني سوق لسان الحانت مالها دكتين وحاير هرت كنت اللي بدا اسكو يسوي مقاله احمد كنت متكس لو بورو تكني كان ود منها هو بقول افر باور كليوا شيخ وحنا ليهي شيخ وحنا ليه فرماجه waxaan ku iri la taliyo xagga diinta iyo qofta ma qabo farmaajo waxaan ku iri hadii aadan sida uu rabo yeelin sheekh shariif qolkiisa asagoo ku jira aray buu taleefanka qabsaha ka bacdina layfu gala bacdina wuxuu dhahayaa wadanka laga qabto farmaajo ka bacdi maxaa dhacooyay
waxaa dhacaya muqdisho galbeedkeeda 150 gaari ah madaxweyne ka soo galoys muqdisho dhinaceeda kalena koonfurtana 150 gaari ah ka soo galoys 150 madaxtooyada soo weerarayaan waana ugu la baxaya 150 usagay difaaca hooyaan asagay difaaca hooyaan kaasna waa sheekhi reerka lay kargo loo saar حاجة كلا دناد كني وعبد القادر بوس وأنا صاحبك وقبلك في هذا خيرك بس أنا محوك أمسي سود على سيدي بنام بحال السوق صباحا بريت الصبدواي صباحا صومالي ما أنت لو قد كلول إن أنكو هلا الرباء وما لحظة قارئ اسمكو هلك حكم كنك هاي من ريحان ما نيك حكمك هاي وأبقى وأنا وعيسل haddii goofkayga dhaxdiisa xukun laga qaadan karo xukunka ma baraadsadeen ba asaga dhanba way isagu waxa aaminsan yahay madaxweynuhu hadduu yahay madaxweyne mundulooda ama waa isla wax kasta inuu samayn karo oo uusan ahayn la mid ahayn qof daarooda waa fikir fiican ma sha Allah way balaka kalaad siyaasiyiinta xaqooda kani وحلبان باش مدحوينها حلبان باش مدحوينها وحو حلبان هذا كله كعايا كنا أفليادينيا إن قبيل كودولان جابيه مقدسنا أيسن واحد كسر سماين كريم إلا على جربه من دلوا دوساهين أنا نوك يا هو يرمى خير وقردان تولى موجود دقيق يا ورموه يا دادو هلا dadoo hadla marka mana la hadalna moogtay shalay waxa ma hal soo rogsaday على dheeraada aan saxnay qofka ayay ma jirto aan lagu ana ku dhaha qofka ayay ma jirto lagama yeelo wallahi billaah tartiibka adiga beledka tartiib joog ha yaan la iska daba korbootimiin mucaarada meelaha tamarrabna waxaasna ka marrab way muqdisho isku soo aroori muqdisho waxay la dhacaysaa dadkeeda iyo siyaasiyiintooda oo kuwaas waxayna la dhacaysaa fikirka noocaas intii hadda aan tusay shirki mudulloodi maanta ma jiro haddii laakiin madaxweyne daarado jiri lahaa wuu jiri lahaa 150 baabuur ee darbiyada ka soo daadanayay ee sheekhu sheegay maanta ma jiraan haddii ay jiraan waan arkaa taba way xildhibaan nooca u hadlaya iyo sheekh noocaas iyo qabiil noocaas mooro ay kaaga badan yihiin ama ay aaminsan yihiin ayagu leeyihiin ma noqon kartaa meel ummad Soomaaliyeed laga hago oo laga taliyo I will say no wallahi muqdisho ma noqon karto ma qaba anigu inay noqon karto caasimad Soomaaliyeed waxaa baaq u diraya siyaasiyiinta ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan ay ugu horeeyaan labada nin ee madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland maanta ka fariinteeda gaarsiin Puntland maanta ka ee masiirka ummadeed qoraya hadeer waxaan leeyahay ka hadla meelna soo saara inaysan muqdisho noqon karin caasimad Soomaaliyeed waxaa noqon karaa meel awoodeeda loo sameeyahay meel qofka xildhibaanka boorama ka yimid iyo midka boosas ka yimid iyo midka boondheer ka yimid ay isku si ka yihiin bal ma noqon karo meel haddii alla ku idmahayo qofkii aan hawiye ama hawiye maxaa u leh istaghfir hawiye ayagaa dulman kan la qaayo leelangaa batay waa hawiye ka hadlamayo in la yiraahdo qofka haduusan qabiil jifi hebel jifida xasan ahayn waa langa meel u leeyahay ma noqon karo caasimad Soomaaliyeed in laga tashado inuu baahanta labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaan labada saaxiibada waxaan leeyahay kow haddaad masiir ummadeed ka talinaysaan lambar kow waxa ka talisan inaysan ummadda Soomaaliyeed si u heli lahayd meel loo siman yahay oo laga talin karo ama dawladda Soomaaliyeed ugu dhisi karo haddii kale fanta shuruuf al-cadaalad haddii kale halka masayba fadhida ilmaha riyaad mar la baan ilay waliba dadka reer Puntland waxaan leeyahay oo Saciid waxaan leeyahay
ورماشة حمرة مصيبة فريدة مصيب سلو ما كنا نسا نفسي غاونا أو كلام رجع أو كله أريا يحانا هاي هبلانا سو إلهي بان كل إلهي بان هو درشة هذا متك هبلو حاذر اللي هاي يكون سلوجه أما مصيدة دقيقة تا قارن أنت كنت بشين تاسع سنة يستا ما هيكون كل دوي ولا أي هذا ما نرك كل دوي سما حاذر iyo masayga dhigta intaas leeg maxay kala duwan yahay dharka ahayn kan dhar buu qabaa dharkiisa loo gashto umadana ka barto umadana ka fiirso sida dharka loo gashto waxa kuma dhaco marka walaalayaal reer Puntland tashada maanta Muqdisho zuluba ku nool dad ilbaxa oo horumar raba oo dowladnimo raba meel ay ku sii loogu xirnaan karaan ma anigu waxaan qabaa sida Somaliland in la goostaan qaba I will say no in caasimada aan ka dhao meesha yiraahdo Muqdisho oo ma soo laga hay karo waxaan u qabaa dad waxay ku leeyihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed wariyaa aniga caawa Yurub aan joogaa midnimada hadda anu caawa Yurub aan joogaa Yurub ayuu dhaxmaynaya hadda qaaradda Yurub oo dhan kala fiirsho aad buu yahay dalalka ku nool iyo dadka reer Yurub hal oday baa wada dhacay wan oday wada dhacay hadii aan wada fiirsho wadu indhu wada buluug sida Soomaalidu suugtay hal oday baa wada dhacay waa kala tageen waa kala qaybsameen dagaalkii koobaad adduunka iyo dagaalka labaad adduunka yaa istagaalay reer Yurub baa istagaalay maxay isku dagaaleen markay isbaabiyeen bay kala goosteen wariyaha meesha liya Jarmalka aragtay Puntland baa ka weyn Jarmalka aragtay Puntland baa ka weyn meesha la yiraahdo Hamburg anu aan deganahay iyo meesha la yiraahdo iyo Baden-Württemberg Stuttgart baa u kala fog 8 saac loo kala socdaa 8 saac loo kala socdaa waa inta gaalka ayaa loo kala socdaa meesha liya baashi iyo meesha liya iyo Boosas inta loo kala socdaa day labada magaalo isku okay dadkaasi waa kala tageen kala tagooda ma horumar bay ku heleen mise wanaag ku heleen su'aal kale weydii Djibouti ka Soomaali ma ahayn NFD ka Soomaali ma ahayn meeshan la yiraahdo DDS ka Soomaali ma bal ka warrama maanta DDS iyo Djibouti iyo diyaal ku roon NFD haddii ay ka mid ahaan lahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ka mid ahaan lahaayeen soo sideenoo kale dhiiqo iyo dac kuma dhex jireen xasanna uma taliyeen qodin iyo xaradii maanta xagee joogaan maanta maanta jigjiga maanta iyo adsao kee dhax ka dhifsi waa suugi waa wada laami laba haad gaar ka hormaan mayo jigjiga waxaad moodaysaa inaad Yurub joogto markaad jigjiga joogto ka hor hadduu maanta Soomaali ahaan lahaayeen madaxweyne xasan xukumi lahaa oo dhiiqada madaxweynaha suluuga ama madaxweynaha muxuu ahaa diyaar ku roon yahay muxuu ahaa qoradan la yiraahdo masayga xasan waa masay oo kale geerin nabiga ma ogeey madaxweynahaas iyo tiimkiisu iyo xaadoole hadday maanta jijiga xukumi lahaayeen ka war see noqon lahayd wariyaa dadkan la iskuma dhaxayn karo annaga hadda idin leh dadkan la iskuma dulhayn karo dad suluu ah dhiiqa dhex galgalanaya bacaad ku dhex jira bulaacad ku dhex jira bulaacad oo bulaacadi xaarkii la dhacay ul miyaan dhahnaa Somaliland ay jooga midnimo la rabaa Puntland ay jooga midnimo la rabaa no dadkan reer koonfureed waa dad bulaacad ku dhex jira way oo bulaacadi ul baa la haystaa dhash qofkii soo agmara baa la wasakhaynaya nijaasada la gaarsiinaya please sida Somaliland go'aanka u gaadhay baa waxaan qabaa go'aankeedana waa ku saxsan yahay ilaahay ha barakeeyo hala taabi su'aalkan weydii wariyaha midnimada ku haysaan Djibouti maanta waa dawlad waa idin caawinaysaa ciidamadeeda maanta waxay joogaan meesha la yiraahdo balwada jooga tan haddii la aqoonsan lahaa Somaliland sonama caawiseen oo ciidamo ima soo dideen oo ima kabteen haddii Puntland la aqoonsado dawlad noqoto sonama soo ida caawin mayso Yurub hal oday wada dhalay waa ka dawlad dadka la iskuma dhax qof aan dawlad rabin ee 91 dhulkii la kala dhacay hadda maanta ayagu isku haysta ma aha wax la sii horfadhiyo ummadda hal laga xishoodo nin quwaa xalay nin qaruuxina arla waa quud hal ka qabso Muqdisho ma sii ahaan karto magaala madaxda ummadda Soomaaliyeed haddii la rabo wada jirka ummadda Soomaaliyeed waa in Muqdisho magaala madaxda laga wareejiyo oo noqotaa magaala reer hebel halka fadhida hawiye leey
هويه هو قشو عاركيسنا هكون حقست لكن ما نقول كنا مجال أمد الصومالي لو قلت لك فكر يقولوا ذا كومنتيجا فيديو قارسين شاركره تشاو تشاو